بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أحبائي في الله أحبكم في الله horta ilaahay daraaddii baan idinku jeclahay subxaanahu jalla wacalaa waana darajo aad iyo aad u sarraysa waana darajaadka lagu gaadho carshuraxmaan hooskiisa in la hoos harsado ilaahayna waxaan ka baryaa anigiyo idinkaba inuu kuwaa nagu daro wejiyadeennana uu naarta ka xoreeyo qodobka ama mawduuca la qoondeeyey inaan wax ka tilmaamo waa mawduuc aragtidayda aad iyo aad muhiim u ah waxaa la yidhaahdaa dhismaha qoys wanaagsan ayaa la yidhaahdaa waxaan jeclaan lahaa oo codsina iga ah muxaadarada qaab projector aan u soo diyaariyey laakiin waa laga yargaari waayey in la wada daawado la arko hase yeeshee waxaan diyaar u ahay qof kasta oo jecel inaan muxaadarada aan siiyo inaan siiyo USB qofka haysta waan siin karaa qofka emailkiisa isiiya waan siin karaa qaybta koowaad ee muxaadarada ee muqadimada ah waxaanse ka sii jeclaan lahaa qofka qalin iyo buug haysta inuu qorto waxaan u bixiyey kelimadani laba mawduuc bay ka koobnaan doontaa qaybta koowaad waa qaybta hordhaca ka ah waana 39 qodob weeye waxaana la yidhaahdaa ibaro waan ku barane qaybta labaadna isbarashadaasi wixii ka dhashay oo aan u bixiyey mafaatiixu tafaahumi bayna azawjayn furayaasha la isku fahmo lamaanuhu ay isku fahmaan labadaa qaybood bay ka koobnaan doontaa haddii alla yidhahdo subxaana wa tacaala marka ciddii xoogaa jacayl dareemaysaa soo fadhiisato ciddii jacayl yar dareemaysa ama doonaysa inay reer dhisato mustaqbalka ama xogaa reerka ka yar hallaysan yahay oo doonaysa hadda inay toosiso ha soo fadhiisato insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo hordhaca wuxuu leeyahay qaybta koowaad ibaro waan ku barane qaybtan waxaan isticmaalayaa 39 qodob intaana gabadha guursanin waadna arki doontaan qodobada muhiimka ay leeyihiin waxaan ku bilaabayaa waxaan jeclahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira gabadhi baa shukaansanaysaa wiilkii gabadhi baa shukaansanaysaa wiilkuna gabadhi buu shukaansanaya waxaan jeclahay inaad ii sheegto waxa calooshaada ku jira ee runta ah waxaa kaloon aan rabi lahaa inaadan waxba iga qarinin daacadna ii noqoto waayo waa arrin la xidhiidha mustaqbalka dhow iyo midka dheerba waxaan kaa codsanayaa inaad iiga soo jawaabto su'aalahan hoos ku xusan adigoo aad iyo aad u mahadsan saasay u qorantah ayadoo Soomaali ah su'aasha koowaad gabadh yahay su'aasha koowaad wiil yahow waxaan ku weydiinayaa kow maxaad u malaysaa su'aasha koowaad inay noqonayso waan ku jeclahay beerka i xanuunaya ma aha say dhallinyaradu isku shukaansadaan xalay ma seexanin kaana i seexi ma aha macnu qodobka koowaad ma idiin sheegaa xiriirka aad la leedahay cibaadada allah gaar ahaan salaada waa sidee su'aal waaye inay taariku salaadad aan ilaahay ku xidhnayn reer ma dhisi kartaa ii jawaaba reer ma dhisi kartaa maya ma dhisi karto kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad qaabka ay ku arkaan bulshadu qaabka ay ku arkaan bulshada aad la nooshahay waa noocee fiiri
bulshadu qaab bay kuu arkaan adigana qumanahaga qoorta kugu jira ninka u fiican baa iskugu fiican baa tahay adigu waxaad leedahay ninkaa fiican maba jiro laakiin dadku qaab kale kuu arkaan ogow dadku siday kuu arkaan qof aamusan oo dadka ka go'an oo aan hadlaynin maxaad la aamusantahay tolow ma doqonnimaad la aamusantahay mise caqli waxaan ahay qof bulshaawi ah oo dadka dhex gala hadhowta guriga sirtiisa seed u qarin doontaa waxaan rabaa inay gabadhu ogaato ama wiilku ogaado qofkani bulshada dhexdeeda sidee buu ku yahay jawaasiis ii shaqaysana waan leeyahay anugu oo waxaad ii sheegtay adigu waan ku dabamarayaa dadkaan soo weydiinayaa qofkani waxa uu yahay qodobka saddexaad maxaa balwad kuu ah oo aad xiisaysaa ii sheeg ma kubad baad jeceshahay ma filimaad jeceshahay gabadhay ma sheekadaad jeceshahay yaa mabaqaad baad cuntaaba geed kharaarkaa miyaad cuntaa yaa maxaad jeceshaho balwad ku ah waa in laga soo jawaabaa mawduuca ii baro waan ku baran baa la yidhaahdaa xataa odayga 70 jirka meesha fadhiya waa anfacaysaa ee islaantiisu isfahmi laayihiin midka dhallinyaradana waa anfacaysaa mid kastoo dhaarsan bay anfacaysaa waxaa la yidhahdaa ii baro waan ku barane maxaa balwad ku ah oo aad xiisaysaa waa qodobka saddexaad meela socotaan qodobka saddexaad qodobka afraad xiriirka aad la leedahay waalidka inteed ku qiyaasi kartaa qof waalidkii soo habaaray adiga ma ku dhaqi karaa yaa gabadh habaaran oo lagu tufay iyo nin habaaran oo hahay la yidhi ma reer bu dhaqi karaa waa habaaran yahay marka waa inaad ogaato qofkaad la noolaanayso waalidkii siduu ku yahay reero badan oo burburay ma oga waxay la burbureene wiil habaaran baa meesha ku jira gabadh habaaran baa meesha ku jirta caradii allah samada kaga socota markaasuu leeyahay reerkii baan ku degi la'ahay seed ugu degi hooyadaa baa ku habaartay oo aabbahaa baa ku habaaray haddaba qodobka horaad wuxuu leeyahay xiriirka aad la leedahay waalidka intee in la eg buu qodan yahay hoos jira intee in la eg buu qodan yahay qodobka shanaad wuxuu leeyahay markaad go'aan qaadanayso qaabkeed u qaadataa markaad go'aan qaadanayso seed u qaadataa nin labaclabaca gabadh labaclabacada oo aan go'aan qaadan karin weliba raggaya ragga nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso dhallinyar ma maqlaysaan nimaan go'aan qaadan karin reer ma dhiso laabudda waa inaad tahay nin go'aankiisa ku kalsoon markaad dadka la tashato kadib qodobka lixaad wuxuu leeyahay fasaxyada iyo xilliyada firaaqada maxaad u isticmaashaa waqtiyaalkaad firaaqada tahay maxaad qabataa waa muhiim waxaan rabaa inaan ogaado talow markaan fasaxan nahay ma anaad igu mashquuli doontaa ma anigaad meel i geyn doontaa ma anaad turki i geyn doontaa ma anaad diyaaro i saari doontaa ma anaa ila sheekaysan doontaa ma anaad maqaaxiyaa i geyn doontaa ma anigaa suuqa ila soo wareegi doon aniga carruurtayda mise meel kale kaaga caddahay fasax baana gabadhan waa sidoo kale xilliyada aad fasaxa tahay maxaad qabataa waa qodobka lixaad ogaada qodobka toddobaad dhegaysta ma jiraan xanuunno khaasa oo aad qabto ii sheeg hadday 10 meelood lagaa soo qalay oo adiga dhanba jirkaaga karkaran yahay oo hadhowta markaad guriga igu soo gasho aad ii dimaato uu nin maad moodo maro la tolay hadhowta xaggeed aadi sooma haddii markii guriga aad soo gasho ayba soo baxdaba ninkani inuuba sonkor midda ugu sarraysa iyo dhiikar meedka ugu sarreeyaa soo maaha ilaahay hana caafiyo ya gabadh baa nin guriga loo geeyo habeenkii saa guriga loogu geli bay suuxday dhakhtarka markii la geeyana waxaa lihi gabadhana asmay qabtayba maxaad u sheegi weyday asma inaad qabto inay habeenkii arooska waa suuxday cudurradu waa wax jiri kara dhalinyaro su'aal baad weydiinayaa run iga jawaaba markaad gabdhaha shukaansanaysaan su'aalaan ma weydiisaan beerka i xanuunaya sooma taasaad ku mashquushaan su'aalahan waa su'aalo muhiima weeye si fiican u dhegaysta waana waxa uu guryaha nooga dumay ogaada ma jiraan xanuunno khaasa oo aad qabto ii soo sheeg
qodobka sideedaad waad la yaabi doontaan ma khuurisaa habeenkii maxaa dhacay haddayba anigu aan ahay dadka markay hurdadu ka tagto aan seexan karin mar labaad adiguna khuuradaada deriska laga maqlayo soo jeedkaa badan hadhowta xanuun baa igu dhalan doona iisii sheeg marka inaad khuuriso oo khuuro weyn aad leedahay khuurada quruxda badan lama sheegayo xaragada khiiq ah khuurada waxaa sheegaya maxaa la yidhahdaa deriska iyo colka iyo markay yimaadaan haddaa ninkaa laftiisa khuurada weyn colaad markay dhacdo waxaa weeye asaga ragga lagu hordinayaa saa daraaddeed waa inaad dhahdo gabadhay ma khuurisaa laakiin khuurada ragga u badan soo maa qodobka sagaalaad dhegaysta cuntada nooceeda ugu jeceshahay adeer ninkaagan indhaha waa weyn haddaada gabadha weydiinin cuntada aad jeceshahay sidaan horay u sheegnay wax badan ku celnay bariis baasto dalacbilaash haye dhowr jeer waan ku celinay hadhowta maxaa dhacaya haweenku inay dhahaan sheekhow nimanka soomaaliyeed jacayl waxba kama yaqaanaan sax waa nimay ayadu toogatay waa nimaad adigu dishay gabdhaha waxaan ku dhaha ragga waa la nafaqeeyaa fiiriya su'aal hadda haddaan gabdhaha way iga fog yihiine aan hal su'aal weydiin lahaa waan jeclaan lahaa oo aan codkooda maqli lahaa oon gabadh walba aan ku dhaho carruurta guriga joogta yaa carruur ilmahe ugu yar yaa carruurta guriga kuu joogta ilmahe ugu yar haween badan baan weydiiyey islaam walba waxay leedahay wiil baa iigu yar gabadh baa iigu yar aamus ninkaa kugu yar ilmaha waxa ugu yar waa ninka weliba waa idiin sheegayaa dhegaysta qofka ugu dambeeye la seexiye ee sariirta la geliye ee go'a la huwiye ee caanaha la siiyo ma ilmaha mise waa ninka runta ii sheega soo ninka maaha fiiriya haddaba dadka guriga ku nool ilmaha ugu yar ilmaha reerka ugu yar ma la dayacaa mise waa la dhaqaaleeyaa dhaqaalaysta dumarkow raggiina dhaqaalaysta oo macsarada iyo cambuulada ku gura iyo kalluunka waxaa kale oon jeclahay inay gabdhuhu fahmaan iyo raggaba in masaajka la barto masaajka ma taqaanaan ninka markuu shaqada ka soo noqdo odayga intaad sariirta aad go' khaasa saarto seexi asaga dhanba kadibna min madax ilaa luga masaajka u samee oo haddaadan ninkaaga u masaajaynin ma islaan gaalaama u soo masaajayn marka aduu kugu soo daalay ninkuna waa inuu masaajka barto xaaskiisu masaajay isu masaajay marka cambuuladu waa muhiim oo digirtu waa muhiim oo macsaradu iyo olyaliibadu waa muhiim oo kalluunku waa muhiim oo qudaartu waa muhiim marka ragga hala dhaqaalaysto haddii kale hadhowta waxaa la dhihi ragga soomaaliyeed jacayl ma yaqaanaan nin aad dishay jacayl muxuu ka garan allihii allah cuntada nooceed oogu jeceshahay haddaba ninkaagu sii sheeg gabadhuna ha weydiiyo qodobka tobnaad maxaa kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo allahu akbar qodobka waan ku celinayaa leesh lianna waa qodob muhiima war haddaan xanaaqo haddii aad xanaaqdo war qorta dee darsiga sheekhaas cimaamadda cad khayr allah siiyo qor waa muhiime jazaaka allah khayran hore baan u idhi ninka jacayl dareemaya ha yimaado saas maaha gabdhahana waa saas iyagana waxaan doonayaa marka inaan dhaho cuntada maxaad kaa xanaajiya si aan kaaga ilaaliyo hadda iisii sheeg waxaad wadaa aniga waxaasaan ka xanaaqaa oo waxaasaan ka liis dheer u soo qor gabadha liis u soo qor aniga waxaasaan ka xanaaqaa iga ilaali gabadhana ha dhahdo nimo wiil yahow anigana waxaasaan ka xanaaqaa ilaahay baa idinku dhaariyey caawa haddaad tagto maxaa la saydeliyada ama farmarsiga markaad tagto farmashiyaha oo aad daawo ka soo gadato soo warqad lama socoto warqaddaasaad u isticmaali lahayd soo saas maaha ma idinla tahay yaa wax walba waxaa loo sameeyey nidaam masaajidada nidaam lagu kala socday leeyihiin reer dhan oo dhismaya wuxuu ku kala socdo ma lahan ma saasaan qiyaasaynaa
لا reerku wuxuu kala socdo leey horta saan ku aqaana hadaad xanaaqdo waxaad ka xanaaqdo saan ku garanaya horta anigu waa su'aal da'weyne yaa ii sheegi kara waxaad ka xanaaqdo ii sheeg waxaad ka xanaaqdo adigana soo gud waxaad ka xanaaqdo waa qodobka tobnaad weeye waa muhiim meel ku qorto qodobka tobnaad qodobka tobnaad haddii aad xanaaqdo maxaa daawo kugu ah oon kugu dejiyaa waad xanaaqdo soomaa gabadhi baa waxay tidhi haddaan xanaaqo sariirtaan galaayo waan isduuduubaa waan seexdaa laylama hadlo sax daa ha isduuduubtee ha la hadline daa waxay tidhi haddaan xanaaqo naqaskaan iska sii daayaa waan qayliyaa adna waa inaad aamustaa markay islaantu xanaaqdo aamus dariishadaha soo xidh tiifiga dami carruurtii adiga beerbeer u seexda isdhegaysta islaantu ha qaylido mar xagga ha kuu dhaafto mar xagga ha kuu dhaafto afka abuur ha ka kiciso ayadaa marka dambe iska kaca ku dhihi leesh li'anna marka hore isku ogeydeen sooma waxay ku degtay waa inta laakiin dadaad maxaad la qaylaysaa ifur hal baan kugu furay ii dhammaystir saddexdaan kugu furay maxaa sugaysaan marka maba la isyaqaanee ninkii baa wuxuu yidhi haddaan xanaaqo waan baxaayo raggaan la soo sheekaystaayo masaajidada iyo maqaaxiyaan tagaayo hadhowta anigoo ubax ku wadaan ku imaanaya iyo shukulaato daa ninka iridda ha u istaagin ha soo cara baaba'ee daa warka ayaa samayn karaa waa ciddan waxaan fahamsan weeye laakiin ma garatay radda reerahni waxay nooga dumayaan waa dadaan weli isbaranin weeye ayib qodobka labiyo labaatanaad ma tahay qof jecel nadaafadda jirka dharka guriga iyo gogoshaba haddaan nadaafadda aan laisku waafaqin haddee guri yaabla ayaa lagu noolaanayaa qodobka 13aad kuweed ugu jeceshahay in la xiriiriyo ehelka iyo saaxiibada yaad jeceshahay gurigaaga inay imaadaan saaxiibba ahaan marka laga hadlayo gabadha u sii sheeg saaxiibbo badan baa guryo dumiyey guryo waxaan garanaynaa ay saaxiibbo dumiyeen li'anna lagama wada hadlin gabadhii saaxiibbay la socotaa uusan ninku jeclayn ninku wuxuu la socdaa saaxiibba ayna gabadhu jeclayn war ninkaa ma jeceli qaar baa acazakumullah wax la sheega ma aha barnaamij ila tali la yidhahdoon isticmaalo ayaa waxaa in badan lay weydiiyaa saaxiibtay ayaa ninkaygii iga shukaansatay haye saaxiibkay fiiri saaxiibka ninkayga saaxiibkii ayaa guriga iigu imaadoo wuu ii hunguriyeeyaa subxaan allah soo waxaa marka hore in bannaanka la marya maaha war gurigan yaa saaxiibkaoo soo gelaya waa kuma waa qodob asagana aad iyo aad muhiima weeyaan qodobka 14aad qaabkeed u jeclaan lahayd inuu arooskeennu u dhaco aroos aan laga wada hadlin waan ku jeclahay waan kaa helay arooskii baa la gaadhi mar alla markii arooska la gaadho waxay leed adeer anigu arooskay waxaan rabaa hotel in lagu qato maxaa la dhahaa maxay 5 star ani waxaan rabaa adeerkay oo Canada degan iyo ayayda Ingiriiska degan iyo maxaa la yidhaha abtigay oo halkaa degan inay ka soo qayb galaan haye kooxdii muusigada iyo islaantii buraanburaysay iyo maalinta dhallinyarada iyo maalinta haweenka iyo maalinta siisagootinta ayaa meeqa kharash baa ku baxday ii sheega qodobkan waxaan kaga niqaashi doonaa galabta 6da galabnimo markii la gaadho barnaamij dhallinyarada loogu talagalay bas ah oo magaciisa la yidhaahdo dhallinyarada guurka maxaa ka hortaagan hadday isguursadeenna durba maxay isu furaan ayaan kaga niqaashi doonaa haddii alla yidhaahdo oon jeclay inaad si fiican aad nogala qayb qaadataan haye arooskeennu qaabkee u dhacayaa anigoon ku guursanin waa inaan ka heshiinaa haddaan ku arko inaad micyo dhaadheer leedahay waxaan ku leedahay abbaayo duurka gal mid yaroo aan isfahmaynaba imaanayse sax sooma ayib qodobka kale wuxuu leeyahay meherkaagu waa meeqa aye waxaa jira meher la yidhaahdo ii maqashii ma maqasheen ii maqashii ha la yidhaahdo magaaladan oslo la yidhaahdo gabadhii ugu meherka qaalisanayd weeye allahu akbar iigu dhawaaq kolba ima siin doonee laakiin kaamirada ha ii gasho facebookga ha lagu faafiyo in hablaayo intaa lagu meheriyey shaytaanku sida ugu ciyaaray fiiri galabtan kaga hadli doona haddii alla yidhaahdo qodobka 16aad yaad la socotaa oo saaxiibba la tahay
aniga saaxiibadaadaan raba inaan hadhowta kugu qiyaaso dadka aad saaxiibada la tahay qodobka 17aad waan ku jeclahay maxaa laga wadaa wallahi cajaa'ib way qodobkan in badan baan maqlaa waan ku jeclahay waan kaa helay beerkay xanuunaya dhiiggan kuu shubaya maxaa laga wadaa aye haddaan weydiiyo ninkaas odayga ah ninkaasaan sheegayaa ninka haddaan su-aasha weydiiyo mise ninkaasaan weydiiyaa maya kaasaan weydiinayaa xaaskaaga markaad leedahay waan ku jeclay maxaa ka wadaa gabadha inteeda guursanin aad leedahay waan ku jeclahay maxaa laga wadaa horta waa in las weydiiyaa war waan ku jeclahay waa in meel la saaraa huhaa weeye waan ku jeclahay waa in meel la saaraa idan su'aalahan oo dhan fiiriya waxay u baahan yihiin jawaab mar dhowna waxaa arki doontaan innagoo intaan weeb u samaynay oon su'aalahan jawaabo ku soo qornay qofku intuu jawaabahan galo su'aalahan uu qoro kadibna warqad kuu soo baxaysa oo ku dhahaysa adeer weli maa guursan kartidee dib ugu noqo koorsaa lagu siinayaa gabadha ordaysaale nin baan guursanayaa adeer horta bal shuruuddan soo buuxi nin kale horta waan guursanayo horta bal shuruuddan soo buuxi okay yaad la socotaa waan ku jeclahay maxaa laga wadaa qodobka 18aad haddii uu yimaado khilaaf sideed u xallin doontaa qaabkee goobtee xilligee waa muhiim jiddan wey malaa'ig isma guursanin waxay isguursadeen waa bashar caadi ah haddaba haddaan isguursanno khilaaf imaado waxaan rabaa inaan ogaado khilaafka saad u xallin doonto goobtaad u dooran doonto qolka jiifka wax laguma xalliyo qolka jiifka hoolo waaweyn oo kale u yaalla dadka qaar baa waxay ku xisaabtaan qolka jiifka haddaay hadalka maxaad ii lahayd markaasaa hurdadii ninkii ka tegaysaa oo gabadhii ka tegaysaa markaasuu xagga isu gedinaya war qolka jiifka nidaam baa loogu talagalay dhalinyaro xaggee wax lagu xalliyaa fadhigaa lagu xalliyaa goobtee lagu xalliyaa xilligee la xalliyaa ma markaan xanaaqsanahay ma markaan shaqada ka soo galo ma markaan daallanahay ma markuu madaxii xanuunayo ma markay goormaa la xalliyaa saacaddee la xalliyaa meeshee lagu xalliyaa warkaa su'aalihiinta alowey adeer ninka qoslayow shaqada arrida ku taallaa ka jiifso qodobka 19aad qaabkeed u fahansan tahay barbaarinta ubadka adeer carruur hadduu allana siiyo qaabkeed u fahansan tahay meeqa kitaab baa soo akhriday meeqa dawraad soo qaadatay meeqa muxaadaraad soo dhegaysatay horta ilmaan dhalayaa ma ahane horta ilmo in la barbaariyo maxaad u fahansan tahay qodobka 20aad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheerba adeer reerkani waa dawlad reerkan dawladda ah dhaqaalihiisu xagee ka soo gelaya habeen dhoweyd waxaa lay weydiinayey sheekhow waa ninaya xaas baan ku qabaa ameerika midna soomaaliyaan ku qabaa tii ameerika joogtay waxay leedahay waxba ha shaqaynina guriga noo joog adeer haddaadan shaqaynin maxaad qabanaysaa ma islaanta war annagaa wax aragnay hadda ka hor Soomaaliya xoolaha dumarka dhurwaabaa ka sheegtay Soomaalida maqal xoolaha dumarka dhurwaabaa ka calacalay dhurwaabaa neef adhi qaaday islaantu markay arto dhurwaab waxay alla waa kii neefkaygii cunay dhurwaabaa wuxuu yidhi wallaah haddaan xoolaha dumarka xoolaha ka aqoon lahaa maba cuneen adigana markaasaad doonaysaa inaad maxaa la yidhahdaa aad haweenka waxooda cunto war haweenka waxooda ha loo daayo oo hala shaqaysto waa muhiim qodobkaa marka qaabkee qodobka 20aad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa aan isku waafaqno qodobka 21aad mustaqbalka fog xaggee jeclaan lahayd inaad ku noolaato adiga iyo xaaskaagaba maxaa mustaqbal noo ah waa qodobka 20aad weeye qodobka 22aad qalbiga halkan ii soo jeesta marka qalbiga ii soo jeesta wax yar ii soo jeesta qalbiga xaaskaagu dhash ninkaagu hadduu isxidho qalbiga ninkaagu ama gabar yahay ama nin yahow qalbiga xaaskaaga hadduu isxidho maxaa lagu furaa meeqa furaad haysataa yaa meeqa furaa qalbi isxidhay in lagu furo meeqaad u haysataa adeeradaa su'aasha lagaa rabaa aye qalbiga waa isxidhay furaan u baahannahay marka haddaadan furan aqoonin qalbiga adeer iska loga hadiya
iska luge qalbi isxidhay wixii lagu furi lahaa waa in la helo weeyaan qodobka 23aad maxaa kobciya allah kan waa ajaa'ib dhagaysta kan indhaha isku qabtaan mar caadi maaha kan khatar weey wuxuu yiri maxaa kobciya jacaylka kana dhiga beer qurux badan iyo biyaha badda oo kale ya salaam haye waxaa suuraysataa beer qurux badan iyo biyaha badda jacayl oo adiga xagga ka soo burqanaya haye wali suuqa lagu gado ma tagtay biyaha jacaylka lagu waraabiyo wali ma soo iibsi jacaylka maxaa lagu waraabiyaa adulka maxaa waraabiya biyo Soomaha ayaa jacaylka maxaa waraabiya adu ma is weydiis jacaylka illa waraabiya malab ya jacaylka maxaa waraabiya waa inaad biyaha noocaas raadisaa qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku raacsanahay oo naga dhaxeeya horta su'aal aniga adiga maxaa naga dhaxeeya ayuutan wada gelinaa Soomaaliya shaloongan wada gelinaa Soomaaliya maxaa naga dhaxeeya wax walba soo naga dhaxayn karo haddee wad yaabaysaan wax naga dhaxeeya daadin sheego xataa candhuufta naga dhaxaysa allah nabigu intuu biyo cabo oo saa u wareejiyo ay Aisha saa u wareejiso ayaa meeshuu nabigu ka kaban jirtay allah kaliga wad dhali weyday ana kaliga waan dhali weyday shahwada naga dhaxaysaade ma waxa naga dhaxaynin baa jira adi kaliga ma dhali kartaa anu kaliga ma dhali karaa saan shahwada iskugu darsanay wax walba nooga dhaxay idan qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaa isku darsanaa oo naga dhaxeeya qodobka 25aad reerka maamulkiisa yaa xaq u leh kan dhagaha u fura reerka maamulkiisa yaa xaq u leh reerka yaa madaxweyne ka wareedha gaariga yaa wadaya tareenka yaa wadaya diyaaradda yaa wadaya ma gabadha wada mise ninka wada mise waa wada wadnaa bal shaydaanka iska naarto saasma idan waa su'aal qaangaara weey su'aashan waa qaangaar la socda 15 sano dhaaftay reerka maamulkiisa yaa xaq u leh isoo sheeg wareedhe gabadha intaana shukaansanayaba hadaanan arintan ka wada hadlin hadda hadhowta maxaa dhacaya ya waad isiin doona waxaas oo waa ka niqaash doontaan insha Allah qodobka 26aad wada tashiga lamaanaha maxaa laga wadaa aan wada tashanno maxaa laga wadaa aan wada tashanno طيب aan wada tashanno maxaa laga wadaa yaa ka jawaabi kara aan wada tashanno maxaa laga wadaa waa in la yaqaano sidii loo wada tashan lahaa reerahana dhibaatada ugu weyn waa maxay fannu idaarati alkhilaaf baan garanayn khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa Soomaaliya dhan baa garan la Soomaa Soomaaliya dhan baa hadda garan la khilaaf baa dhacay Soomaa war seen u maareynaa xataa waa la garan la'yahay qodobka 26aad qodobka 27aad haddii ay musiibo dhacdo qaabkeed oo la dhaqmi lahayd abaar baa dhacday colaad baa dhacday xanuun baa dhacay imtixaan baa dhacay sideed u maareyn lahayd qodobka 28aad qodobka muhiim dhageysta albaabka markaan ka soo galo sidii qaabil lahayd haye wajigee hadalkee ficilkee ayaadii qaabil lahayd ninka guriga soo galina wajigiisu waa noocee markuu guriga soo galayo oo qodob muhiim ah qodobka 29aad marti iyo mudane sideed u maamuli doontaa marti waa dadka caadiga mudanahuna waa dadka qaraabada si مثلا sideed u maamuli doontaan marti iyo mudane qodobka 30aad ballanta kowle cadaaladda xuquuqda runta iyo dareenka mas'uuliyadeed maxaad u taqaanaa waxaan rabaa inaan ogaado ballan maxaad u taqaan cadaalad maxaad u taqaan xuquuq maxaad u taqaan run maxaad u taqaan mas'uuliyad maxaad u taqaan labada qof ayagoon isguursanin waa inay masaa'ilka imtixaan ay ku galaan si ay go'aan uga gaaraan ama ninku go'aan uga gaari karo gabadhan ma tii kuwa habboonayd baa wiilkani ma kii kuwa habboonaaba dhalinyaro mila socotaan si fiican su'aalahan waa muhiim waan sheegay qofka raba haddaan siinaya laakiin ka soo shaqee inaad ka soo shaqaysaa lagaa doonaya
qodobka 31 ma tahay qofkii qof wixii loo geysto aan iloobin cuqdadlow miyaa tahay waad aragteen hadda reer 30 sano isqabay baad arrintooda gelaysaa fiiriya reer 30 sano isqabay ayaa arrintooda gelaysaa markaasay leedahay shabadaan waagaan deganayn goormay ahayd waayo wax laga soo tegey ayay ku leedahay waxa ninkiina wuxuu leeyahay hadalkaad waagaa i tiri ذكر الجفا بعد الصفا جفا واسيداس وي قلبك صدر يا لباد سرت غوريغا نوعدو تقانا سرت غوريغا نوعدو تقان سرت غوريغا ما لا فهم علماء الله انت ادو تقانا لكن انك سرت غوريغا waxaan u naqana مثلا هذا الله bixiyo Soomaha ma inta kaliya ma hada arko ninkii oo meelaha la isku imaado ku daahaya oo jecel inuu soo gurigiisa aadin ninkaas sir buu bixiyay sirtu bixiyay waa maxay guriga kuma faraxsana islaantu inuu ka seexato rabaa islaantu markay seexato inuu guriga soo galo rabaa saasma sirta siyaalo badan baa loo bixiyaa sirta guriga noocadu taqaan qodobka 33aad ma ii sharxi kartaa tiirarka uu ku taagan yahay reerka wanaagsan reer wanaagsan baa jira meeqa tiir buu ku taagan yahay ii soo sheeg bal islaamku meeqa tiir buu leeyahay soo shan mala soo islaamku shan tiir kuma taagno su'aal guri wanaagsan meeqa tiir buu u baahan yahay haddana ila aqoonin inta tiir gurigu ku taagan yahay seen u dhisanaynaa guri baad rabtaa inaad dhisato intaasoo tiir ka maqan yihiin oo dumaya marka ala tuulku ku dhacaya qodobka 34 haddaan kula qodobka 34 hadii ma iska daya qodobka soo isku dar asna ma raaciya okay qodobka 34 haddaan kula guursado anoo ku jecel maxaa samayn lahayd hadda anoo ku jecel macna leedahay ogow haweenku waxay u fahmaan hebel waa guursado waa indhacay may taa kuma hadlayo anoo ku jecel haddaan kula guursado maxaa samayn lahayd adoon guursanin kala soo hadal waa muhiim annagoo isguursanin baan arrintaa meel isla dhigayna bidillaahi tabaaraka wa tacaala qodobka 35aad raalli ma ka tahay inay xaaskaagu shaqaysato ama waxbarashada sii wadato in aday ku anfacaysaa Sooma su'aaluhu aad bay u fara badan yihiin ilaa waxaan ku khatimayaa haddaan qodobka 36aad haddaan ka dalbado inaad u soo guurto magaalada ama wadanka aan deganahay maxaad dhihi lahayd ana wadanka aan deganahay qodobka 37aad waa idin sheegay waa qodobka ugu dambeeyay mid ka horeeyay 37 hadaa yiri Soomaha waa 38 طيب qodobka 17aad waxbarashada dhanka diinta iyo maadiga halkeed kala maraysaan maxaa taqaanaa xagga cilmigaaga qodobka 38aad ma jeceshahay wax akhriska hadduu qofku waxba akhriin sidee wax loo horumarin karaa qodobka 39aad maxaa u dhaxeeya qabiil iyo qabaliyad keesa ku dhaqantaa Allah yaani hadduu ninku labada kala garanayn oo nin uu qabiil ka buuxo gabadhii uu gacanta u galo ama gabadh reerkoodaba haddii la soo qaado ayada dhanba reerka waa isdilayaan gabagabadii gunaanadka iyo gabagabadii fiiro gaar ah ugu dambayntii waxaan ilaahay kaaga bariyaa qof walba ka kale ku leh inuu ku fududeeyo su'aalahan jawaabtooda waxaana diyaar kuula ah insha Allah inaan kaaga jawaabo wixii aad soo weydiiso wada shaqayn wacan wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh